iyadoo lagu jiro maalintii saddexaad ee ololaha Jamhuuriyadda Somaliland ee doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada wadankii bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantinay waa ka wadani wadankii simo wasani bariye farxad loo qalay waa ka wadani wadankii simo wasani bariye farxad loo qalay wadankii bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantinay waa ka wadani wadankii simo wasani bariye farxad loo qalay waa ka wadani wadankii simo wasani bariye farxad loo qalay وعنان هورتي إيو وبيقول فرقضي ودنا أهو وأناقا هانتني وكا وطني ودنكي سمو وسني بريه فرحة الله قلي وكا وطني ودنكي سمو وسني بريه فرحة الله قلي وعنان هورتي إيو وبيقول فرقضي ودنا أهو وأناقا هانتني وكا وطني ودنكي سمو وسني بريه فرحة الله قلي وكا وطني ودنكي سمو وسني بريه فرحة الله قلي سمي وذا ودني والنطيق ضايه وذرتوت بلشدو وحيليه هورنو وذو ودن كان هقو هورنو وذو وقامي ودني هورنو وذو ودن كان هقو هورنو وذو وقامي ودني هورنو وذو ودن كان هقو هورنو وذو وقامي ودني هورنو وذو ودن كان هقو badiba deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley waxaanu ugu horeyn safarka Dr. Maxamed Cabdilaahi uu ku marayay xafiisyada kala duwan ee uu ka furtay badiba deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley uu maray degmada Arabsiyo gobolka Gabiley tuulada Geed Abeera tuulada Xidhinta tuulada Tincada iyo sidoo kale degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley oo si diiran oo milga iyo miisaale loogu soo dhaweeyay anagoo ku nasanay degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley waxa uu safarkiisa Dr. Cabdilaahi Ismaaciil Cabdi uu si gaala bixiyay dhanka iyo degmada magaalo Farxaan Waalid Xoor iyo sidoo kale degmada Geed Balaadha iyo degmada Wajaale ee gobolka Gabiley halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay ugu horeyn waxa hadallo kala duwan ka jeediyay goobaha kala duwan ee safarka ku marnay musharax xildhibaan Cabdilaahi Ismaaciil Cabdi oo isagu u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Gabiley na sharaxan xisbiga macaaridka ee wadani musharaxa ayaa waxa hadaladiisii kala duwanaa ee uu ka jeediyay deegaanada uu safarka ku maray ayaa waxa kamid ahaa noqon maayo qof diilaaya waxa noqon doona qof sanadka iyo gudaha xisaabsada sida uu qaban lahaa deegaanka deegaanka Gabiley iyo Allay Badayba aad baad u maasantihiin وشقي في عام وحأرجو هذا غيا أن الله يجيب بدي وله كلا فوق ترى يوجيه بقولك بقوله هاي بعد ما سنتهي وبدأنا كيف مثلا سبب مثلا نقول ما يكون الصراحة نقول أنا في ساعة ربنا هاي سلفة سيدنا هاي تقبل لها وحنا سيدنا قبل لها هذه زي كذا لكن في عام إن شاء الله إمام المخرج إمام المخرج بخشة الإسلام لكن خلاص أهلنا بالمهر يشتغل إن شاء الله إن شاء الله وحنا قبل دورة وشيء بسيط كذا لا قبته
halkii marka hore ay ku jiraan caafimaadka maantana waxaan u qaban doonaa insha Allah inaan caafimaadka kor u qaado oo isbitaal helno ama fiishka ay kor u qaadno inaan waxbarashada ka shaqeyno ka shaqeyno beeraha Allah baraka ka fiican gudaasiyo insha Allah ana waxa uu kalifay maanta inaan soo sharaxo dibadda deegaankayga baahiyaha ka jira awgeed waxaan rajaynayaa inaan si daacad ah oo cadaalad ah aan ugu tali doono insha Allah bismillaah karim waxa xaq u leeyahay inaan soo bixin doono intii hore la joogay Allah baray waxaan ka qabtay ayaan muujinaysaa maanta inaan wax ka weynaado arin doonto insha Allah waxaan rajaynayaa halka waxa ka sareysan gaari doono inuu khayr qabo soo noqon doono insha Allah bismillaah karim waxaan rajaynayaa inuu Allah baray inaan fursado badan abuuri doono iyo hay'adaha Allah baray إن حقيقي أن كل هالقرى الإنسان جميل يا ابن هذي تونا إن شاء الله لا يقول هذا الجبل ورمت مسك قام قاوم تونا إن شاء الله وخلت الديوان كأنه بينه آذي أبغى الدنيا قرى كجبل توصلنا لحد بعد حيان فهل أنت يلا حساب أنت ترك أي مخيل المهن إن وحنا دورنا حق ولا المهن أنت يا شو الله أنت يا شو جبلي أنت يا شو جبلي وحنا شقيه الدنيا كان قاعد يحنا شقيه أنت يا شباب جميل وحنا شقينا يكون هو إحنا شقينا يكون دارة وحنا شقينا صهر جامعة كل اللي جميل يسبح جامعة كذا أنا أربع كذا سكوتك وجاية فوقها هجينا أرتفع على فريا وأنا قاعدين يكون قاعدين جيلنا سيسا بأهانا حتى هو حمدون إن شاء الله إن لسان الله أنصار المهيان المسؤول لدونه أي تقول وفرمك سعيد ما تقول لنا قلنا إيسا مرنوات دي مرسطحات ونسكينا إن شاء الله إذا الله قال كل استوى إذنك خلقنا هذا القاسية مرة باوي وهانك إن شاء الله dhanka kale iyaguna waxa hadalka iska daba maray badiba shacab weynaha kala duwan ee ku soo dhaweeyay deegaanada kala duwan ee uu booqday musharax xildhibaan Dr. Cabdilaahi Ismaaciil Cabdi degmada Allay baday arabsiyo gabilay iyo intii hoos timaadaba waxaan leeyahay codkiina horta olole iyo waxaan way iska yartahay laakiin waxa muhiim ah codkiina waxaan leenahay Cabdilaahi ku garab istaaga عادة المتعينتين إنجاز المتعينتين دوسوا الوسائل مشرحة الدكتور عبد الله إسماعيل وعندكم معتتين صباح واحد مش رجعنا شاننا مركز دمركم محميرة يا عدة ريرتا عدنا ويسوس هرتا وحويا دورشين جمهور ولا إسبرتين شاننا عدة ريرتا عدنا ويسوس هرتا عدة ما تشرحني وعد شاننا أي سوس هرتين ويان ما أنت تعمل ما أنت عن بيرش الرحمن الدجمة ما أنت قبل وحي وصل بهذا وش الرحم وحي الله ما أنت أبكى بسرعة الليلة أنا ما أنت أبكى الناس هم شقيقي أفر يلا ما أعطيك ساعة ذا يوك شقيني لحدا قلب ما أعطوه الروح بكوضه إلا حبين كان صوت بوسو جيد جري مالتا صوت بوسو جري لا قف كاس أما غير ونقولها أما برصده ساسود تاقنا جري ما سنتين taageerada aad u muujiseen daktarka taasina waa mid isaga ay kaga sugayno abaalka ay ka sameeyeen xalina Cabdilaahi oo aqoon badan leeyihiin codkiina inaad siisaan aniguna aan hubayn inuu anfici doono wala xaaladadan uu ku anfici aqoonta maadiga ah iyo aqoonta dabiiciga ah badan baa idinku xisaabtamaya wadka maaha dad badan baa idinku xisaabtamaya iska xidha walaalayaal oo Cabdilaahi doctorka soo saara doctorkiina maayir makaan doonayna insha Allah wa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame